soo dhawaada jaaliyaal maanta sheekadu waxay ku saabsan tahay buraad aad u caqli badan oo dhacaya bangi si fududna uga baxsanaya iyagoo aan la qaban. sheekadu waxay ku bilaabanaysaa Dalton oo lagu arkayo isagoo si toos ula hadlaya kaamirada oo sheegaya inuu fuliyay dhac bangi oo si aad loo soo qorsheeyay bangiguna uu ku yaalo Wall Street isla markaana si caadi ah albaabka uga soo baxay isagoo aan la qaban. su-aasha kaliya harsan ayaa ah sidee buu sidaas u sameeyay. kadib isagii kooxiisa ayaa arkayna iyagoo kusoo socda Manhattan Trust Bank iyagoona si soo eekeysiyay ranjiyaal. Dalton ayaa ugu horeen bangiga galay wuxuuna demiyey kaamiradaha amniga. qorshahooda si heer sare ah loo soo habeeyey ayaa u suurtageliyay inay albaabada xakameeyaan dadkiina dhulka jiifiyaan ilbaqsiyo gudahood. askari booliska ayaa usoo dhawaaday bangiga kadib markuu arkay qiiq ka soo baxaya ka hor intuusan wicin xarunta booliska. Dalton ayaa banaanka usoo baxa kuna yidhaahda dadka gudaha ku jiray waa la haystayaal, haddii booliska usoo dhawaadana waa la dili doonaa. askariga ayaa si degdeg u wacay boolis waxaana goobta kusoo daatay ciidamo badan iyagoo qiimeynaya xaaladda, xirayana goobta islamarkaana xanabiya wadada oo dhan. mulkiilaha bangiga Arthur Case ayaa lagu wargeliyaa in laanta bangigiisa la qabsaday laguna haysto dad badan. warkaasi aad buu uga walwalaa, sidaas daraadeedna wuxuu wacaa dilaal awood badan oo la yidhaahdo Madalena si ay u ilaaliso hanti qoys oo muhiim ah oo ku jira sanduuqeed ah oo bangigaas ku dhex jirta. Madelenana waxay hor dhigtaa hal shuruud, inuu u sheego waxa ku dhex jira sanduuqa inkastoo uusan khasab ahayn oo uu been u sheego. ballanqaadkeeda iyo heshiiskeeduba waa burayaan, laakiin dabeecadda Case ayaa ah inuusan been sheegin balse runta oo dhanna ma wada sheego. sidaas daraadeedna keliya wuxuu rabaa waxaa sanduuqa ku dhex jira inay halkaas ku xirnaadaan amase gebi ahaanba meesha ka baxaan. Madelenana way ogolaataa inay la shaqayso. dhanka kale waxaa arkayna laba baariyaal ah oo boolis ah, Fraser iyo Mitchell ka tirsan kooxda wadahadalka. Fraserna waa askari khibrad dheer leh oo aad u caqli badan, balse waxaa saaran arrin yar oo ka timid waaxda arrimaha gudaha inkastoo ku adkaysanaya inuusan waxba galabsan. kadib labadoodii ayaa kusoo degdega dhanka bangiga waxayna galaan gaari boolis ah siday ula halaan Captain Darius oo mas-uulka ah goobta. u sheegay inaan weli la ogeyn tirada tuugada iyo haystayaasha. Fraserna wuxuu u sheegay inuu ogolaanayo inuu xakameeyo goobta balse marka uu helo xog faahfaahsan uu filayo warbixin. isaga iyo Mitchellna waxay tagaan maqaaxi ay sugayaan. gudaha bangiga tuugadii ayaa haystayaasha u kaxeeyay qolka amniga waxayna geliyeen saf kadibna waxay u kala saaraan shaqaalaha bangiga iyo dadka kale. Dalton wuxuu ka amray haystayaasha inay furayaashooda iyo taleefanadooda gacanta kor u taagaan si loogu ururiyo. mid ka mid ah shaqaalaha bangiga ayaa u sheegay inuusan taleefan wadan. Dalton oo ka shakaya wuxuuna helaa taleefan nambarkiisu ku qoran yahay speed dial. markuu waco ayaa la ogaanayaa in taleefanka uu yaala xafiiskiisa. kadib Dalton ayaa ninka u kaxeeya xafiiskiisa si arxan daran u garaaca sida cashar ugu noqoto kuwa kale. markuu soo baxo dhiig ayaa ku daadsan. intaas kadib nin ayaaba la soo boday furayaashiisa halka wiil yarna uu tusiyo mobile uu video game ku watay. Daltonna wuu ogolaadaa inuu haysto. kadib Dalton ayaa mar kale haystayaasha dib u habeeya isagoo u kala saara lab iyo dhadig una amraya inay dharkooda iska bixiyaan. marka laga reebo haweeney waayeel ah dhammaantoodna way sameeyaan. saaxiibtiis oo dumar ayaa haweeneydaas meel kala geysa. inta kalena waxaa la siiyaa dhar iyo maaskar ay xirtaan oo la mid ah dharkooda si askarta loo jahwareeriyo. la haysto waayeel oo bangi ka shaqeeya ayaa xanuunsan wuxuuna sheegaa inuu wadna xanuun qabo. Dalton iyo mid ka mid ah tuugada ayaa u ogolaada inuu baxo. boolisku isla markiiba way qabtaan wuxuuna u sheegaa in lagu soo daray fariin ah haddii boolis usoo dhawaadaan bangiga in laba mid ay soo tuuri doonaan burcad. dhanka bangiga kooxda tuugada ayaa hubiya haystayaasha kale waxayna dhex baraan bangiga sanduuqa amniga iyo sidoo kale sanduuqa keydka. dambeyna waxay galeen qolka keydka ah oo qalabka xafiiska yaala. wax yar kadib waxaa la arkaya iyagoo qolkaas u diyaarinaya wax gaar ah islamarkaana qodaya dhulka hoostiisa. Darius ayaa u yeeray Fraser iyo Mitchell wuxuuna u sheegay in haystayaashii la sii daayay uu sheegay in afar tuuga bangiga ku jiraan. wuxuu kaloo u sheegay inuu sugayo muuqaaladii kaamirada duubta islamarkaana taleefanka bangiga loo waciyo booliska. wuxuuna go'aansaday inuusan wicin tuugada isagoo doonaya inuu ogaado waxa xigtay samayn doonaan. Mitchell ayaa helaya gaari ay tuugada wateen inkastoo la tuusan yahay inuu yahay gaari lasoo xaday. markii Fraser ugu dambeyn uu go'aansaday inuu bangiga waco Dalton taleefanka kama jawaabo. booliskana waxay helaan muuqaaladii kaamirada inay arkaan sidii tuugada u damiyeen iyagoo qiyaasaya inay adeegsadeen iftiin infrared ah. isla waqtigaas Madelena waxay la kulantaa duqaniyo waxayna ka dalbataa adeeg weyn iyadoo sheegaysa inay kormeerayso xaaladda haystayaasha ee bangiga kana codsanaysa in loo ogolaado in si gaar ah ula shaqeyso booliska. duquma hore uu ka adeegaa laakiin ugu dambeyn way ku qancaysaa wuuna ka ogolaaday. tuugadu waxay sii daayeen haysto kale oo wata qalab ku qoran fariin dalab ah. boolisku sida caadiga ah waxay u qaataan ninka singa ah inuu yahay carab argagixisa waxayna si xun uga qaadaan imaamadiisa. markii dambe Fraser ayaa ku wareysanaya maqaaxi ninkuna aad buu u careysan yahay. ugu dambeyn wuxuu xaqiijiyay in tuugadu yihiin ajaanib tirada haystayaashana ay tahay 20 ilaa 30. dalabyada tuugaduna ay yihiin in loo keeno 2 bas iyo diyaarad weyn ka saacadu ay tahay 9 fiidnimo haddii kale hal haysta ay dili doonaan saacadii. bangiguna uu ku rakaban yahay qaraxyo badan. Darius wuxuu u sheegay in diyaarad la heli karin baskasta laga yaabo. Fraserna wuxuu ku adkaystaa in ilaa ay la hadlaan Dalton aysan waxba siin doonin. kadib Arthur Case ayaa yimaada gaariga booliska wuxuuna weydiistaa inuu caawin karo. markii loo sheegay dalabka diyaaradda wuxuu weydiinayaa inuu isaga diyaarin karo. ugu dambeynna waa laga saaray gaariga. tuugadu waxay dalbadeen cunto waalan loo keenaa. kadibna Fraser wuxuu isku dayaa inuu ka hadashiyo laakiin Dalton wuu ka aamusaa umana jawaabo wuxuuna dib ugu laabtaa gudaha. taas ayaa booliska fursad u siisa inay dhageystaan waxayna adeegsadaan qalab duubis ah oo ay ku dhex rideen cuntada. mid ka mid ah
haystayaasha ayaa iska dhigay nin adag wuxuuna isku dayaa inuu iswaalo laakiin tuugada way jiidaan waxayna geeyaan qolka qalabka markii booliska codka dhageysteen waxay ogaadaan inay ku hadlayaan af luuqad kale ah kadib boolis asalkiisa ruushia ayaa u sheegay in afkan uusan lahayn afka ruushka balse u eg luuqad lagaga hadlo bartamaha wadamada yurub kadibna codka ayay samaacada ka daaraan lana weydiiya dadka cidda garanaysa luuqadaas ugu dambeyn shaqaale dhisme ayaa soo baxa una sheegay inuu luuqadaas uu garanayo ayna tahay luuqad kasoo jeeda wadanka albaniya maadaama xaaskiisii hore ay halkaas ku dhalatay kadibna xaaskiisii hore ayaa loo yeeraa wayna qosashaa markii codka maqashay waxayna u sheegtaa in codka iska daaya ayba garanayso qofka hadlaya waxayna u sheegtay in codku yahay madaxweynihii hore ee shuucigaha ee wadanka albaniya ka talin jiray taasoo caddaynaysa in codku ahaa mid been abuur ah oo lagu marhaabinayo booliska kadib dalton ayaa furaya sanduuqeeda wuxuuna ka helayaa dukumiinti dheeman iyo boorsooyin yaryar kadibna dukumiintiga ayuu ka qaataa sanduuqna waa la xiraa ugu dambeyn madelina iyo dalton way kulmaan wadahadalkoodan wuxuu muujinayaa in arthur case uu ahaa la shaqeeye naasi intii uu socday dagaalka labaad ee adduunka daltonna wuxuu qaataa dukumiintiga si uu u noqdo caymis kadib baara fraser wuxuu u sheegay asxaabtiisa inay tuugadu egyihiin wax walba ay samayn doonaan sidaas daraadina ay bedelaan habka ay wax u baarayaan wuxuuna wacaa dalton isagoo ka dalbanaya inuu u ogolaado inuu gudaha soo galo si uu u huyo in haystayaasha ay nabad qabaan dalton uu ka ogolaadaa markuu gudaha soo galay waa la baaraa waxaana la geeyay qolalkay ku jiraan haystayaasha isagoona qolalka mid loo tuso dib markii uu baxayay wuxuu isku dayay inuu maaskaraha ka qaado dalton waxaase kasoo gaaray mid kamid ah tuugada dib markuu ku laabtay asxaabtiisa wuxuu u sheegay in tuugada aysan ahayn kuwa halis badan oonay cidnana dili karin sidaas daraaddeedna aysan ka walwelin daqiiqada kadib waxaa taleefanka kasoo waca dalton una sheegay in kaamarad kusoo aadiyaan daaqada halkaasna waxay ku arkaan dalton oo tooganaya qof baara fraserna dhulka ayaa kusoo yaraada u dagaa dalton isagoo cadhaysan dalton wuxuu u sheegay in qaladkan uu yahay qaladku isaga galay kadibna waxaa la amraa in la weeraro bangiga waxaana la diyaariyaa qorshihii loogu weerari lahaa bangiga si fiican ayaana loo diyaariyaa baara fraser isagoo la sheekaysanaya askari ka mid askarta wuxuu dareemaa inay wax qaldan yihiin wuxuuna si lama filaan u baaraa qalabkii lagu soo xiray ninkii singaha ee laga soo sii deynayay bangiga wuxuuna halkaas ku ogaaday in la maqliyay wax walba ay ku wada hadlayeen ciidanka wuxuuna degdeg u wacaa darius isagoona u sheega in tuugadu ay maqlaysay qorshahooda oo idil ciidankuna dib usoo laabtaan dhanka kale tuugadu waxay bilaabeen inay diyaargaroobaan waxayna shidaan qiiq waxayna meel iskugu keenaan lahaystayaashii wayna soo sii daayeen iyagoo isku soo dhex daraya booliskuna way ku reeraan waxayna wada qabtaan dhammaan dadkii kadib ciidanku waxay gudaha u galaan bangiga waxay ogaadaan inaysan cidna joogin sidoo kale waxay ogaadaan inaan cidna la dilin qofkii la dilayn uu ahaa been hubkan uu ahaa kuwa carruurta ay ku cayaaraan tuugadan waxay ku dhex milmeen lahaystayaashin qofna lama garanayo cidda tuugaha cidda haysta ah hal toddobaad kadib dalton ayaa la arkaya isagoo ku dhuumaalaysan jiray bangiga gudihiisa isagoona halkaas horey ugu sii diyaarsaday meeshuu sii gali lahaa laakiin si lama filaan asxaabtiis oo banaanka ku sugayay ayaa soo waca una sheega in baara fraser iyo saaxiibkiisa michel ay soo gaareen bangiga midaasna dalton wax cabsiga kuma abuurto wuxuuna soo baxaa isagoo isku kalsoon wuxuuna si kutalagal ugu sii dhacaa baara fraser laakiin ma dareemo baaraha wuxuuna u baxaa sidii macmiil oo kale markii dambe baara fraser wuxuu furiyaa sanduuqii wuxuuna ka helaya xanjada caalinta iyo faraantiga iyo qoraal oranaya raac faraantiga ugu dambeyn fraser wuxuu ku guulaystaa inuu fashiliyo arthur case isagoo sidana ka adkaada madelina iyo duqa magaalada new york film wuxuu kusoo dhammaanaya iyadoo fraser uu jeebkiisa ka helaya dheeman yar oo dalton si qorsaday jeebkiisa ugu riday markii uu ku dhacayay ugu dambeynna filimka halkaas ayuu kusoo dhammaadaa